بسم الله الرحمن الرحيم. عشان waxaynu uga hadli doonaa explode and erase waa chapterka saddexaad cashirka sideedaad ee softwareka Autodesk AutoCAD kusoo dhawaada darsiga diyaarsan. Explode waa function kamid ah functionada modify group inta ay ku jira waa kaasa iconkiisa waxaana loo isticmaalaa it's a command used to convert polyline to line yani in polyline kan aad u bedesho line ayaa loo isticmaalaa. hore waan soo hadalnay how to convert line to polygon ama differences ka u dhaxeeya labadooda. darsigan waxaynu ogaanaynaa marka how can we convert polyline into line. We have here polyline which connect each other, then we want to convert line. waxaan u baahanahay inaan polyline kan hadda meesha noo yaalo aan ka dhigno line caadi ah. haddaad u fiirsato haddaan inta kale ku sii asagana wuu isku raacaya. waxaan rabaa inaan kan goonidiisa aan u sameeyo kanna aan u sameeyo yani line ka caadiga ah oo isku xirnayn ayaan rabaa inaan abuuro. marka functionka kuu sahlaya ama commandiga kuu sahlayo ayaa la yiraahdaa explode. erase-na waad garanaysaa waa in wixii la tirtiraa waa u tagi doonaa insha Allah cashirka qaybta dambe ayaynu ka hadli doonaa. haddaba si aan u sameeyo aan rectangle kan iyo triangle kan ku sameeyo practice-ka hagaag مثلا we have this rectangle soo qaada marka waa kana explode صار كذب highlight صار تاني انت ما كان هاي ايق marka wax iska bedelay you see marka hore uu isku wada dhaganaa laakiin hadda uu kala qaadan yahay oo lines kala go'an ayuu noo yahay rectangle-ki halka marka hore uu noo ahaa mid isku wada dhagan. shortcut-kiisa waxa weeye inaad taabato x bas just press x then select then maamugu noo yahayba admi kan aan ku sameeyno ka waan ku soo sameeynay nooma shaqeynaa daa ku sameeyay de shaqada dartinta qabato waa inaad tagtaa meel ka shaqeynayso soma dan interne bas marka aan ku celiyo yani hadda markaan fiirino triangle kan uu isku wada dhagan yahay oo waa polyline waaye. marka polyline ka mar rabay waxaan u baahanahay line inaan ka dhigo therefore waxaa taabanaysaa x bas ah uu ku soo qorayaa explode wakaan wuxuu ku fiican yahay AutoCAD-ka commandiga aad rabto inaad qabato haddaad ku qorto korkiisa wuu kuu soo bandhigayaa. marka aan enter dhaho then select gare then okay dheh haddaba eeg marka waxaa isbedelo okay sidaas ayaan ku sameynay isaas ayaan polyline kan ugu bedelnay line caadi ah. okay waxaan rajeynayaa in si fiican loo fahmay. okay haddaba markaa fiirno darsiga qaybtiisa labaad ee ah erase in wixii aan tirtirno erase in wixii aan tirtirno asagana shortcut-kiisa waa e laakiin inta ayuu yaalaa in modify panel inta ayuu yaalaa soo qabso waa kana marka okay you see okay marka waa functionada ugu muhiimsan ee lagu shaqeeyo AutoCAD-ka. soo qabso saar kadib okay dheh qad uu ka baxaya. haddaan okay dhihin ma tirmaayo. مثلا you see marka saas dhaado hadaa faraha ka qaato triangle-ka xogaa uu siira muujida xogaa nafa ku soo jirto saas fiican u baqtiiso okay bis dheh waa ku daayay marka. waxaan filayaa in si fiican loo fahmay labadaas function oo muhiimadooda wato ayuu ku saabsanaa darsigeena inta ayaa ku soo koobiyaa. wassalaamu calaykum hope you inaad fahamteen. marka just please do more practice. waxaan kugu boorinayaa AutoCAD-ka mar walba oo practice-kiisa aad badiso waa mar walba oo aqoontiisa aad badiso. waxaan filayaa modify group si fiican ayaan uga soo hadalnay waxaan ka tagnay ma jirto inta ugu muhiimsanayd waana mid ka mid ah functionada ama groupyada ugu muhiimsan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.